ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. intaas ka bacdi waxaynu qaadanaynaa casharkeenii casharkii hore ku xigay. casharkii hore aan kaga soo hadalnay casharkii hore waxa weye casharkan dusha sare xagga sare ku qoran doo tusaale ahaan oo kale kan aynu naqaano ka laa maa naa oo kale ayaynu ka soo hadalnay. hadda casharkanna waxaan ka bilaabi doonaa qaybtan ayaan ka bilaabi doonaa, laakiin aan marka hore kii hore in xasuusiyo waxaa dhacaysa oo aan rabaa in aan idiin sheego weliba akhyaarta walaalaha ee ku xidhan janalkan. intii badnaa waxa aan kusoo duubi jirnay ama soo qaadi jirnay in aynu gaadhsiino ilaa 10 daqiiqo keliya ay ahaan jirtay, laakiin maadaama casharadu ay fara badan yihiin oo aad ay fara badan yihiin waxa aynu doonaynaa wixii ka dambaysa in aynu soo badino casharada. talabaadii waxa weeyaan in aan gaadhsiino in ka badan intii hore. tusaale ahaan 10 daqiiqo bay ku koobnaan jirtay, laakiin maanta wixii ka dambaysa waxaan samayn doonaa in aan 15 daqiiqo aan ka dhigno. ta kale aan rabo in aan ku xasuusiyo waxa weeyaan marka ay casharku ama aan dedejinayo oo kale waa inaad speedka, dadka inta badan youtube-ka yaqaana way garanayaan speedka dhimitaanka in la dhimo, hoos loo dhimo oo speedka aan ku soconay xawaaraha ku soconaya la yareeyo. yacni daawashada youtube-ka waxaa lagu talagalay speed hadba yacni xawaaraha hadba aad ku dhageysan kartid. marka haddii aan dedejiyo xawaaraha yaray waxaa samaysaa xawaare aad si yaroo aad u fudud ama u degan aad ku maqli karto oo aad ku dhageysan karto inaad ka dhigtid. labada arrimood baan rabaa inaan ka hor intaanan cashar ka bilaabin inaan ku ogeysiiyo. haddii aan usoo laabto casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa qaybtii hore baan horta rabaa inaan xasuus aan sameeyo. dadka qaybtood waxaa jirta waxaanay fahansanayn kelmadda alifka iyo kelmadda a loo yaqaano. halkan waxaa aad aragtaa laba erey. labada erey midi waa kan oo waa geeskan, midka kalena wuxuu noqonayaa geeskan kale. kan geeskan ah ma baa lagu dhawaaqayaa, laakiin kan geeskan ah wax dhawaq ah oo lagu dhawaaqi karo ma laha. waxa weeyaan xaraf wax maanta dhawaaq yacni la samayn karo aan lahayn weeyaan. waana ku fahansiinayaa sababta u lahaan waaye. xarafka marka la rabo in lagu dhawaaqo carabigu waxa uu qabaa ama fikirka carabtu ama carabigu waxay tahay in uu leeyahay shaqal. haddii aanu lahayn waxa waajiba in dib loogu reebo xarafka shaqalka leh. tusaale kan oo kale haddaad saa ku aragtid waa yacnihii kan waa alif, laakiin a lama dhigi karo. a wuxuu noqonayaa marka uu yeesho kordhig. marka a haddaad kan tiraahid ma iyo aadu waxay kaaga baahan tahay in ay yeelato waxaa. haddii aanay lahayn a ma noqonayso. marka a ha ugu dhawaaqin wax aan kordhigaa sare aan lahayn. ma uguma dhawaaqi kartid haddii aanay kan lahayn. hadday saas tahay ma waxay noqonaysaa markay tan yeelato. haddii ay leedahay taas aan lahayn miim baa la dhahayaa. miim iyo ma waa kala duwan tahay. miim waa xarafka saas halkaa idinkaga muuqda, laakiin ma maxay tahay ma'na waa taa. marka ogow saa ogsoonow ma iyo miim waa kala yara duwan yihiin. miimku waa xaraf muuqaalkiisu saa weegyahay, laakiin ma'du waa in ay yeelataa kordhigaa sare. marka waa sax. tan waxaan ugu dhawaaqaynaa hadda
تاني هورتا الله أما هورتين كم وقت حنقول دواقنا ما sababtoo maxay waxayna leedahay tan laakiin kan uma dhawaaqayno ali a sababtoo ma leh kordhigi ama kama dheh malaha marka maxaynu sameynaynaa kan ayaynu dib ugu reebi doonaa haddaynu kan ku reebnana wuxuu noqonayaa waxa ay Soomaalidu ay u taqaano sidan oo kale laba aadu alifka weeyaan alifkaas oo reeban ayaa laba aada Soomaaliga ah hada maaha kan waa ma ama miim ama saadoontide laakiin labadan ah waa intan weeyaan alifka weeyaan marka muxuu noqonayaa alifkii wuxuu noqonayaa inaynu ugu dhawaaqno ma marka wax kasta oo la jiidayo oo la oranayo ma oo kale waxa lagu taagayaa ama la isticmaalaya alifkaas oo reebniin leh laakiin inta badan buugaagtu ay kutubtu reebniinka uma sameeyaan marka hadda tan inoo muuqata waa ma weeyaan ma saawayna la socotaa meel kasta oo aad alifka ku aragtid xarafkan xarafka xagga xiga ayaad jiidaysaa ma tusaalahaan eeg hadda tan waxay noqonaysaa naa kan wuxuu noqonayaa waa saas weeyaan marka waa inaad aad ugu fiirsataa oo qaabka uu noqdaa casharkeennii aan ugu talagalay maanta ayaynu dib u soo gelaynaa inagoo akhriyi doonaa marka hore labada xaraf ee ugu horeeya sharaxayaa marka xigtana waxa weeyaan hore ayaan degdeg isagoo ah baan ka bilaabi doonaa casharkeena maanta 15 daqiiqo ayaan ku koobi doonaa insha Allah taala labadan ugu horeysa waxa loo yaqaanaa a intani waa a laakiin kan marka lagu sii daro a uu noqonayaa kana casharkan waan kaga soo hadalnay horaan uga soo hadalnay waa na marka a iyo na oo la isku daray ana baa la dhahayaa ana a iyo na kan ku xiga wuxuu noqonayaa isagana intaas waxa weeyaan ba tana waa a weeyaa haddii hoos dhig leedahay oo saas oo ka hoos dhig lahaan lahayd waxay noqon lahayd ba iyo i baaci laakiin casharka i la yiraahdo oo hoos dhig uu ka kow yahay waanu qaadan doonaa oo waa soo socda insha Allah laakiin hadda kan ayaynu akhriyeynaa waa baaca waanu akhriyeynaa kan ugu dambeeya waynu akhriyeynaa markaasaas oo kusoonow waa wixii Soomaaliga aynu qaabka u qori jirnay oo kale tan iyo aan isku xidho tan iyo tan waa isla mid okay maxaa kaloo isla mid ah waxa isla mid ah kan iyo kaas waxa halka ka muuqda waa isla mid marka baaca weeyaan intaasi waxa weeye sharaxaada casharkeena inta kale waan akhriyayaa laakiin se waan dedejin doonaa ha loo socdo tan ugu horeysa waxa weeyaan taaba kan waa taaba ثار جاع حاز خاف دان ذاق رام زاد سار شاع صام ضاق ضال عاد غاب فاز قام كال مال نام هاب بات تاب ضار نام عام قاس ضال راق ذاق ثابت ثابت ضال قال ثاب زار راح حقا واتا تورسه واتا تحكته وبا تبارك انت ير ودخدا ايا با لا دحيا انت كلا واتا يا
kuwa kale waa ta xagga waxa xigta ra xagga kale waxa kusii xigta ka marka tabaaraka qaabkaas loogu dhawaaqayaa tabaaraka faaza haaba daaraqa faaraqa kaafara kaataba saacada taajara ظاهر خاطب غالب لاكم سار عالم ربا رجا صحا سخا عدا خضا تلا على سما دعا أتاك أدام أنار أهاب أغار أمات أهاب أوار أضاق أفاك أشاع أطال أراد أذاق بنانه تناول أخاسر أعامل أضالع مارق ثمانية وثاقه أكابر سهام نوال سعاد رجلان جملان تلاها حلال سلام حلائل كرتان عفاف ولدها درسها ثوبها شعرها خلاف وردتان ولدان عينان مراكب مخابر مكاتب مطاعم مراوح مدافع يا كامل يا صلاح يا جمال يا كمال يا ناصر يا عالم يا عامر يا حامد يسافران تراقبان تلاها خالها دجاجها يا جلال طحاها نهاكما تخاطبان ديارنا يكافحان تصافحان بلدتان يا فائزان يا دارسان يا قابلان يخشاها منتهاها مزاجها فنفخنا لساحران أعمالهم يغشاها وتقواها عقباها أشقاها وسقياها جاوزان شاتمان عاهدان لامسان كافلان ضاعفان هاجران مقداران محرابان مفتاحان معاملان معاهدان عملاقان كاتبتان غلافان مزماران إمامان دفتران يقابلان ينازعان يشاركان يزاولان يدافعان يظاهران يغادران يفاخران مزماران يجامعان سيارتان حاضران أخرجنا أصابها
عليها عليكما إليهما بيننا أبناءنا وأبناؤكم وأبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا عميانها عاليها سافلها وأمضرنا أفواههم شرفنا سمعنا علماء سماء عماد نجاران أملنا فصلنا رزقنا سعدنا على حالنا تكاسل مالنا أحزاننا أفراحنا كلامنا بالنا جاهنا شاننا أطاعه أقامه أثابه أجابه. halkan ayaan kusoo afmeeri doonaa insha allahu tacaala. dhammaantiinba waxaan idin leeyahay salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. subxaanaka allahuma laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk.